xaflad siyaasadeed loo sheegay isla markaan xariga lagaga jiray xafiiska garabka haweenka xisbiga talada dalka iyo kulmiye ku yeelay degmada Garadeg ayaa waxa ka qayb galay maayir ku-xigeenka degmada Garadeg Yuusuf Cabdi Axmed iyo maamulka garabka haweenka ee heer degmo iyo haweenweynaha xisbiga talada dalka iyo kulmiye xafladan ugu horeyntii hadallo kooban ka soo jeediyeen maayir ku-xigeenka degmada Garadeg Yuusuf Cabdi Axmed iyo gudoomiyaha garabka haweenka Khadiija Cabdi Cabdulle iyo xogayaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee heer degmo Qadre Axmed Yuunus ayaa ugu horeyntii halka waxa ka hadlay gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga talada dalka iyo heer degmo Khadiija Cabdi Cabdulle hadaladeedina waxa kamid ah sida tan الرحمن الرحيم halkan waxaan kaga hadlayaa anigoo ah gudoomiyaha garabka haweenka ee degmada Garadeg xisbiga kulmiye waxaan kaga hadlay anagoo maanta xafiiskayga qaaliga aan sida fiican soo abaabulay anagoo halkan ka furayna xisbiga kulmiye xafiiskiisa halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo عامله محمد شدي ايا هلكا كسلاميا waxaan halka salaamaya ayo kale oo aad iyo aad salaamaya maamulka sare ee xisbiga kulmiye ana bilaye iyo musabixi waan halka ka salaamaya waxay naga dhaxayn doonaa insha Allah wada shaqayn iyo ismaqal iyo maamul wanaagsan iyo xisbigeena tiirsanaada xafladan ayaa intay socotayadana waxa ka hadashay Qadre Axmed Yuunus oo ah xogayaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee degmada Garadeg sidoo kale iyadana waxa tix buraanbura ka tirisay xafladan intay socotay Xaawo Siciid ayaan leh hadaladeeduna waxa kamid ah sida tan anigoo xoghaynta garabka haweenka waxaan xisbiga kulmiye ee degmada Garadeg waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo marwadeena qaranka amra warskuudigay aga ku soo codsiyayo caalamka la siimay cadaalad u siima sharciga suuban buuray alla sareeyana cidira qowsi ninkaasi laayado ay waxba nasiya ninkiisi laaya jecel saxba tiyo gabagabadina waxa xafladan soo afmaray maayir ku-xigeenka degmada Garadeg Yuusuf Cabdi Axmed hadaladiisina waxa kamid ah sida tan anigu waa gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Garadeg waxaan xariga ka jarnay oo furayna xafiiska xisbiga kulmiye garabka haweenka ayaanu furayna insha Allah ta'ala waxaanu salaameynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha ku-xigeenka madaxda dalka aad iyo aad wuxuu ka qabtay aanuna ku taaniyadaynayno waxqabadkiisa waxa weeye xafiiskan galabta si fiican loo soo abaabulay oo madar sayre muqbaaya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Garadeg